wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo dalalka Afrika iyo barwaaqo sooranka ee dalka Ingiriiska Andrew ayaa ka hadlay doorashooyinka Somaliland ee muddo dhaafay iyo culayska ay beesha caalamku ku saartay dhammaan dhinacyada siyaasadeed ee Somaliland inay doorashooyinku ku qabsoomaan sanadkan 2020 gudihiisa. xildhibaan Stephen oo caan ku ah taageerada qadiyadda Somaliland oo wasiirka weydiiyay su'aal nuxurkeedu ahaa deeqaha iyo taageerada ay waaxda kaalmada caalamiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee UK saddexdii bilood ee u dambeeyay ay ku taageertay qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka ee Somaliland, waxaana wasiiru dowluhu ku jawaabay Ingiriisku waxa uu hormuud ka yahay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo heerkoodu sareeyo oo beesha caalamku dhammaan dhinacyada jilayaasha siyaasadda ay ugu baaqayso inay doorashooyinka Somaliland ee muddo dhaafay ee baarlamaanka iyo deegaanka la xaqiijiyo in la qabto ka hor dhamaadka sanadkan 2020. saddexdii bilood ee u dambeeyay waxaanu sii wadnay dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu daray in aanu sanduuqa xiisadaha iyo ammaanka iyo xasiloonida ee loo soo gaabiyo CSSF uu taageero joogto ah siiyo dadaalada dhexdhexaadinta khibradaha farsamada iyo gudaha doorashooyinka qaranka iyo kala shaqaynta nidaamka doorasho ee dadka talada laga riixayo oo ay dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay ay ku jiraan. xukuumadda iyo xisbiyada siyaasadda ee Somaliland ayaan weli ku guuleysan kala dirista komishanka haatan oo khilaaf weyn uu ka taagan yahay si ay uga qabsoomaan doorashooyinka la filayay inay qabsoomaan.